السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضية قيمها بدن والدين تودا شرفت بدن أصحاب تيدا يدمان بوشيدا سي توس كانوا وحران waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago sheeko ka mid ah sheekooyinka aan buugaagta ka akhriyay oo inta ugu badan saameyn igu leh mar walbana igu soo noqnoqota maskaxdaydana aan ka guuri. sheekadaas waxaan ka akhriyay buug la yiraahdo You Can Achieve More oo uu qoray Shif Khayra. waxaa jiray markaa nin dhakhtar ah oo ka shaqayn jiray isbitaal. subaxa ka mid ah sidii caadada u ahayd isagoo ku socda shaqadiisii ayaa waxa uu markii uu guriga ka sii baxay arkay dhalo daawo ah ama quraarad ay daawo ku jirto oo saaran miiska. isla iyo qacdaaba waxa uu sidoo kale arkayay inan yar oo uu dhalay oo gurguuranaysa qolka dhexdiisa isla iyo miiska ay saarneyd dhalada daawada ah ama quraaradda ay ku jirtay daawada. waxa isla markaa magaciisa ku soo dhacay in ay inantaa yar soo tiigsato dhalada quraaradda ah ee miiska dul saaran ayna xabka tahay inay intay furka ka furto ay cabto. dabeedna halkaasi ay ka bilaabanto hoogeeda iyo geerideeda isna ay u noqoto maalin murugale. laakiin waxa uu markiiba isku qanciyay in uu degdegsan yahay shaydaankana uu iska naaro oo aanay suuragal ahayn inay taasi dhacdo. isla markiiba waxa uu jeestay inuu shaqadiisii uu sii aado oo socodkiisii uu bilaabo. shaqadii uu sidii ku tagay wax yar xafiiska markii uu joogay waxa soo dhacay telefoonkii uu eegay waa xaaskiisii. wuu qabtay wuu ka jawaabay markiiba boloor iyo qaylo ayaa yeedhay. war dhiilale ayaa soo dhacay. waxa ay markiiba ku xigsiisay baroortii iyo oohintii iyo cataabkii. waxa markiiba ku xigay igu soo gaar dhakhtarka ayaanu joognaa si degdeg ayaa lagu baahan yahay xaaladda way xun tahay iyo ereyo ka sii daran oo murugale. meel uu joogo ayuu isgaran waayay. wuu soo cararay wuxuu yimi cusbitaalkii. nasiib darro wuxuu u yimi inantiisii oo meyda. sheekadan waxaynu ka dheeganaynaa amaba aynu ka arkaynaa muhiimadda iyo culayska ay leedahay mas-uuliyaddu. waxaynu aragnay oo aynu sheekada ku aragnay amaba aynu fahmi karaynaa oo imika inoo sawiran inuu ninkaasi aabbaha ahi uu inantiisa daqiiqado yar ilbiriqsiyo wax ka yar uu nolosheeda ku badbaadin karayay. laakiin iyadoo ay sabab u tahay mas-uuliyad darro amaba aanu mas-uuliyad aada u culus iska saarin khatarta iyo halista ay inantiisu daaqaysay wax yar ka hor inta aanu shaqada aadin ay sababtay in inantiisu dhimato. sheekadan waxaynu usoo qaadanaynaa inay dareemaan ardayda waalidiinta iyo macallimiintuba mas-uuliyadda macnaha dhabta ah ee mas-uuliyaddu ay leedahay. waxaa laga yaabaa waalid mas-uuliyad inaanad iska saarin amaba aada wax yar u aragto mas-uuliyadda kaa saaran ilmahaaga waxbarashadiisa iyo xanaaneyntiisa iyo korintiisa iyo barbaarintiisa iyo ka warhaynta akhlaaqiyaadkiisa iyo noloshiisa dhabta. macallin waxaa laga yaabaa mas-uuliyad weyn inaanad iska saarin tababarka dhiirigelinta waxtarka iyo gacan qabashada ardaygaaga. laakiin aada maalin maalmaha ka mid a is odhan doonto jaaniska aad haysatay maxaad uga faa'iidaysan weyn. ardayga adiguna sidoo kale waxaa laga yaabaa inaanad mas-uuliyad aada weyn aad iska saarin waxbarashadaada shaqooyinkaaga waajibaadka ee xagga waxbarashada exersyadaada iyo aseymanadaada iyo sidoo kale xagga waxqaybista mas-uuliyadda kaa saaran oo aad dayacdo. laakiin maalin maalmaha ka mid a sida ninkaasi uu isaguna u qoomameeyey aada u qoomamayso adigoo haysta waqti yar oo aada mas-uuliyaddaasi u gudan karto si xilkasnimaa. waxaan filayaa qof kasta oo muuqaalkani soo gaadhay inuu helay dhuuxay fahmay dulucda sheekada. aada iyo aad baad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkeenna. nagu xidhnaa mar walba si aad aqoon iyo xikmad iyo waayo aragnimoba aad u kororsato. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.